soo dhawaada daawadayaal maanta waxaan halkan ka bilaabaynaa casharkeeni koowaad oo uga hadlayno digital marketingka iyo sida Facebook lacag looga sameeyo. ugu horreyn sameynta suuqgeynta baraha bulshada ee ganacsiga cusub iyo shakhsiyaadka doonaya inay baraha bulshada magac ka sameeyaan. waxaa ah haddii aad tahay shakhsi doonaya baraha bulshada inuu ka dhex muuqdo ama magac iyo hibadiisaba uu ku soo bandhigo, waa astaamaha ugu habboon ee si fudud baraha bulshada u dhex geli karto adoo wado wanaagsan raacaya. waxaa ah ganacsi kasta oo cusub wuxuu u baahan yahay tilmaamo iyo taageero joogto ah. sidee baad waqti yar lacag iyo sumcad ugu sameyn kartaa? waa su'aal isweydiin mudan. Nambarka 3 wuxuu yahay habfikirka quruxda badan ee aad leedahay haddii suuqgeyn loo sameeyo meelaha bulshada ay ku kulanto ee internetka wuxuu noqon karaa mid lacag laga sameeyo. haddaba haddii aad tahay qof creator ama raba warbixin bulsho jecel inuu la wadaago digital marketingka, haddii aad barato waxaad sameyn kartaa lacag joogta iyo magac intaba.